Wareerka dunida iyo waayaha adduunka ayaa kuwa mararka qaar fajaciya ama kaaga laash qaraarta marna aad loo ido ku tusaa. Awal hore iyo asalkii noloshaba waxaynu naqaanay dad nool oo cuntada iyo cabitaanka meel saara, waase lama arag iyo lama maqal gabadh qosol ku jaba oo suurad bini'aadam leh, taasi oo sharaabka si cajiiba u ridqaysa amase u qasaysa. Waxa kaaga sii dara inaanad mar qura ka jeesan karin, indhahana kala libiqsan karin. Maxaa yeelay marka ay bilowdo shiditaanka ay kolba dhinac isku qalloociso, ay isjajabiso sawdoobnin ahi ama afka dhalinyarada singalahi sharaabkeeda inta uu koob hoos dhigto si degan sidii qof tahliil ama cashar loo dhigay uu qulqurin maayo oo cabbi maayo. waxayna isweydiin leh meesha uu sharaabku ka imanayo oo ah suulkeeda midig, halkaasuu sida biyaha uga soo burqanayo. waa cajiib iyo cajiib kale lagu daray, waana cibaaro adduun. tiknoolajiyadda casriga ahna waxay marba marka ka dambaysa kusii tallaabsanaysaa horumar aan inaba caadi ahayn. duniduna waxay ku tartarmaysaa soo saarista waxyaalo cajiiba iyo kuwa maskaxdaada dawakhiya oo aad la yaabto lana ashqaraarto. su-aashu waxay tahay, ma cabbi lahayd adigu sharaabkaasi gabadhu ay shiiday?